waqtiga soo gaaray degmada Jiriban ee gobolka Mudug waxa hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Tigay iyo waliba gudoomiyaha la dagaalanka qaadka Bukar Cawaale Qaadiid waqtigu waxa uu qayb ka ahaa socdaalka halka ku yimaadeen socdaal kala gedisan ay ku mariyeen degmooyin iyo deegaamo kala duwan oo ka tirsan gobolka Mudug halkaasi oo ololaha Qaadiid laga waday gudoomiyaha gobolka Mudug iyo Bukar Cawaale Qaadiid waxa ay saaka xil hore booqdeen dugsiga sare ee magaalada Jiriban halkaasi oo arday badan ay kula hadleen maamulka iskuulka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana ay gudbiyeen fariinta la xiriirta arrimaha qaadka bal ka fikra hogaamiyaasha weydiiya macallimiinta weydiiya magaalada Jiriban koronto waxay ku gashan kartaa hal week inta ay qaad koronto 24 hours internet 24 hours wax walba ku qabsan kartaa laakiin Jiriban inay biisho nin walba Jiriban joogo oo qaadka cunaay inuu subax walba u kala oo xil iska saaro oo u shaxaado oo u dagaalamo oo u baryootamo inuu Kenya lacag u diro oo gudnibay noo tahay annagoo boogaheena nagu yaalaan annagoo baahideena qabna marka waxaan idinku dhiirinayaa inaad fahantaan dhibaatada dhaqaale mid caafimaad dhinac walba burburka qoyska idinka ayaana laga rabaa idinka ayaa la idinkaga rabaa inaad fariintaas gudbisaan maanta waxa marti inoo ah degmada Jiriban Bukar Cawaale Qaadiid ninkaasu waxa uu ummadda Soomaaliyeed dhibaatada qaadku uu ku hayo oo kala dagaalamay wadanka Ingiriiska dadkaas oo gaala ah oo aan la diinahayn in la dhaqanahayn dhibaatada bahalkaas ayay ogaadeen markay ogaadeen ayay waxay taageereen halgankiisii in wadanka Ingiriiska qaadka laga joojiyo wadankii uu dhashay iyo dadkii uu ka dhashay ayuu maantana soo aaday ma aha in ardaydu ay qaadka cunto ama macallimiintu cunto laakiin ardaygu wuxuu bartaa waxa wanaagsan nawaafidiya Soomaa in ay idinku waxa wanaagsan umadiina ku dhiirigelisaan waxa xunna umadiina inaad kala diridaan intaasi kadibna waxa uu shir ballaaran oo ka dhacay geed hoostii oo ku yaala saldhigga degmada Jiriban loo dhisayo halkaasi oo cuqaasha waxgaradka iyo haweenku ay la kulmeen maamulka gobolka Mudug oo socdaalka ku weheliyo Bukar Cawaale Qaadiid kolley arrintaas inaynu muhiimadu maaha inaynu inta quracaan Jiriban ee quruxda badan ee saldhigga ku yaala booliska inaynu inta isku nimaano wax isku sheegnay bal inaynu isweydiino waxaanu ma dhibba ma dheefba ma damba inuu ku jidhamayno inuu kuma jidhamiyaa lacagta inoo ka baxdaa ma sadaqa inoo ku baxdaa ma ilaahaytiisaynu geysano masaajid baynu ku darsanay ma waxaynu ka kaaftoonay inaynu waxaynu u baahay badannahay oo badan wadadaynu u baahannahay dekad baynu u baahannahay aeroboor baynu u baahannahay isbitaal baynu u baahannahay jaamacad baynu u baahannahay bini'aadanka adduunka ku nool horumarka ay u baahan yihiin baynu u baahannahay intaasoo dhan lacagtaas ma isagaa inoo ka fiican oo ilaahay agtiisana ajir baynu kaga helaynaa horumarna waynu ku gaaraynaa سينين حسابتنا نران ورمحا حولها أن يارجع أن يلعقتني اللي يصدر يوحني أنه بلغوا عنينا. وحد وقتهم بالإنجليزو لعقتنا لندن كقاعد إن الإنجليز معنا كليه العقول البوقات كلا قاعدة أما لندن هلا جيو أما الصومالية هلا جيو 10% بقول كي بطرن وحنا نسينا هيئة وين عالمية تنقل لي قانون ولي هذا كريستيان إيد أنت مسيحي في الدسة هيئة واحد طلع على بايبل الله كتابك مسيحي واحد يستاك كنيسة واحد في الدسة أنت مسيحي إنك تشرين تشوفه غير فرنت عليه جارسي تاك قالوا أنت $10 أتكون قدرت هيكون بدنت أم $1 أم $2 كم إذا أنت مسيحي قالوا في دين دي هذا فرعون وين ما أنت جيت كيف تقريبا بنتاجنا هاي اللهم بلغت فرنت سوي نسوق جارسي وحنا عنو قادلنا والسنة هاي ليك أنا وحنبوه لما هيا وحكر لما هيا الغاليز وحولنا عافماتك وحولنا قلوبيس وحولنا هبار لما استسوح ليروا لما دعنا ما أنت أنا ولو وح وركيس كله هاي ليك استوى أنا وحولنا ما وحكر لما بتشرنا فائدة كنت مركي لقاها الله وحلا يري نبى أن تشعر أنا يوحو قرقي سنتين يوحو يصير مريين أنت إسكبح شيء واحد صورتها كتبانكي دقسي ميل كل جناب وحمله كتبانكي لبا يا طبعا كمان طول ما يريسنا يا دقسي عاو طول ما يريسنا يا وحو قبا كتبانكو مراد صوران له ما مسكح بوليه هي ما عقل بوليه هي ما حس بوليه كنت مركي لقاها الله
waa masiibo dadka loo soo diray jaamacadda Baraani Somali Channel Jiriban